xuska munaasabada biyaha aduunka oo maanta ku beegneed ayaa laga xusay magaalada Borama shirkada adeega biyaha ee shaba oo munaasabada ay soo qaban qaabisay ku qabatay xarunta shirkada biyaha ee shaba ayaa waxa kala soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka ka degmada iyo qaybo kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi iska daba qaatay mas'uuliyiinta shirkada biyaha ee shaba iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay dhamaantoodna waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahiin in la ilaaliyo biyaha bulshaduna ay ku baraarugsanaato tashiilida biyaha أحمد رياعي التري وركب ورباهين تيس بي سي بورما.